maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen xafiiska duqa ee degmada Berbera ayaa waxay ugu baaqeen guud ahaanba bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera inay iska soo xareeyaan cashuuraha ku waajibay iyo cashuuraha liisamada ganacsiga cashuuraha dhulka hantida maguurtada ee ku taala magaalada Berbera gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Ciidin iyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose Suhayb Maxamed Cali oo ka hadlayana waxa hadalladoodii tahay daaraha haddii tahay ganacsatada meheradaha iyo hudheeladaba ku haysta waxaan u sheegaynaa inaynu galnay sanadka dabayaaqadiisii qaybtiisii dambe qorshaha ayaga annaga ku talagaleeda dabayaaqada sanadkuna wuxuu ahaa inaan bilicda magaalada sare u qaadno waxna ka qabanno iyadoo meel fiican qurux badan noo marayso gacanna ka helna muwaadiniinta waxaan mar labaad u sheegaynaa si aanay kadiso ugu noqonin ama dareenkooda aanay u keenin inay dareen ku keento waxaanu fulinaynaa in muwaadin kastaba la weydiiyo inuu cashuurtiis ka soo bixiyo waxaan la socodsiinayaa dadka reer Berbera ku nool ee dhulka leh ee guryaha leh inay cashuurta ku waajibtay sanadka ku waajibtay 2013ka iyo kuwii ay sanadii hore ku baaqatayba inay iska bixiyaan waxaan kaloo la socodsiinaynaa in hawlgal weyn oo bilaabmi doono usbuucan soo socda hadii la oo kalena gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee degmada Berbera Baasha Cabdilaahi Yacquub ayaa isna ka hadlay wadada isku xidha magaalada Berbera iyo xeebta Batalaale oo dhan 3 kiiloomitir iyo 600 mitir oo maanta ay bilaabeen dhimeystirka jidkaasi dawladda ayaan bilownay oo dhererkeedu leeyahay 3 kiiloomitir iyo 600 mitir insha Allah taala toddobaadkan waan dhamaystiri doonaa waxaana la xiriirnaa mashaariicdii dawladda hoose ee degmada Berbera jidka laamiga ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland oo kamid ah xildhibaan Cabdiqaadir Indho iyo xildhibaano kale kuwaas oo dhamaantood soo dhaweeyay waxqabadkan isla markaana tilmaamay in loo baahan yahay Cabdikariim Saciid Saalaxoon Cable TV Berbera.